Deegaanka Caleen oo ka tirsan gobolka Qorraxay ismaamulka Soomaali Galbeed waxaa la soo warinayaa in haatan ay ku sugan yihiin laba gaari oo nooca xamuulka ah kuwaas oo ilaalinayaan gawaari dagaal oo aad u hubeysan iyo ciidamo fara badan lamana xaqiijin halka sida rasmiga ah ay ugu wajahan yihiin. Deegaanka Caleen 70 kiiloomitir ayuu u jiraa xuduudda ku aadan gobolka Galgaduud, sidoo kale waxa uu masaafo siman u jiraa magaalooyinka Shilaabo iyo Cabudwaaq oo ka tirsan gobolka Galgaduud oo ah magaalada hore loogu furtay hub fara badan oo ay galbinayeen ciidamo ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya. Haddaba waxaanu kala wadaagi doonaa warbixin iyo macluumaad ku saabsan xogahan, balse ka hor faahfaahinta xogtan fadlan daawada muuqaalkan Lexar kana mid noqo saaxiibada Xorma TV si aanay marnaba ku dhaafin wararka iyo macluumaadka degdega ah ee halkan aynu ku baahino. Deegaanka Caleen ee ka tirsan gobolka Qorraxay ismaamulka Soomaali Galbeed waxaa laga soo warinayaa in haatan ay ku sugan yihiin laba gaari oo nooca xamuulka ah kuwaas oo la rumaysan yahay in ay daba socdaan laba gaari oo hore loogu furtay magaalada Cabudwaaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud, kuwaas oo siday hub fara badan iyo weliba saanad ciidan oo aad u culus, taas oo gebi ahaanba dadka deegaanka Cabudwaaq ay si toos ah ula wareegeen ilaa ay haatan aan lagu guuleysan in dib lagaga soo celiyo. Deegaanka Caleen wuxuu qiyaastii 70 kiiloomitir u jiraa magaalooyinka Shilaabo iyo Cabudwaaq oo ka tirsan gobolka Galgaduud, waana magaalada hore loogu furtay isla markaana loogu dhacay laba gaari oo nooca xamuulka ah kuwaas oo siday hub fara badan isla markaana ku soo jeeday qaybo ka tirsan gobolka Galgaduud ayna galbinayeen ciidamo ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya, kaas oo sababay dhicitaankiisa khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Ilaa haatan wax war oo dheeriya kama soo bixin hubkii Cabudwaaq hore loogu dhacay lagumana guuleysan in dib loogu soo celiyo, taas oo dhaafi weysay in dowladda dhexe iyo maamulka Galmudug midba baaqiisa soo diro. Baabuurtan laga soo sheegayo deegaanka Caleen waxaa la rumaysan yahay in sidoo kale ay daba socdaan gawaarida hore loogu furtay magaalada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud, waxaana shaki badan sii abuuray kadib markii dadka deegaanka xaqiijiyeen in gawaaridan ay ilaalinayaan ciidamo iyo gaadiid dagaal kuwaas oo aad u fara badan isla markaana ilaa haatan jiha sax aan u dhaqaaqin, balse la xaqiijiyay oo kaliya in deegaanka Caleen ay ku sugan yihiin. Durbadiiba waxaa bilaabatay in bulshooyinka deegaanada ay isku diyaariyaan in baabuurtan mar kale ay ka war doonaan waxa ay sidaan, waana mid sii cakiraysa xaaladda Cabudwaaq haddii aan la helin cid qaada mas'uuliyadda gawaaridan haddii ay jiraan inay ku raran yihiin saanad ciidan oo la rumaysan yahay in haddii mar kale ay u soo bareeraan deegaanada maritaankooda in shacabku uu ku dhiiro doono falkii ay qaadeen reer Cabudwaaq, maadaama aysan jirin tallaabo cad oo ilaa haatan dowladda dhexe iyo maamulka Galmudug ay ka qaaday soo celinta hubkan. Haddaba daawade wixii warar ay soo kordha adiga ayaa noqon doona hadba daawadaha koowaad ee hela macluumaadka xogtan oo dhammaystiran ka mid noqo saaxiibada Xormo si aanay marnaba ku dhaafin wararka iyo macluumaadka halkan aynu ku baahino.